dibadbax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka Khaatumo laguna taageerayo madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisa cusub ayaa maanta lagu qabtay caasimadda maamulka Khaatumo ee Taleex. kulankan lagu taageerayo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ka soo qayb galay golayaasha maamulka Khaatumo oo ay horkacayaan golaha madaxtooyada, golaha dhaqanka iyo dadweynaha ku dhaqan xarunta taariikhiga ah ee magaalada Taleex oo aan u kala hadhin taageerada Uhuru Kenyatta. iyadoo dadkii ka soo qayb galay dibadbaxaasi ay siteen sawirrada madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta. dibadbaxan lagu taageerayo xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin uu ka mid ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar. taageero buuxda soo jeedinayna inaanu hayno madaxweynaha dalka Kenya iyo golihiisa wasiirada uu soo dhistay. waxaanu taageeraa si buuxda. waxaanu xambaaray in soo jeedinayna sidii ummadda Soomaaliyeed lagu kala qaybinayay kaasoo aanu arkaynay inuu burburinayo qaranimada ku ah qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. cid kasta oo diidana waan hor taaganaa. iyadoo reer Khaatumo ay halkan dheer u soo galeen midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed weligeedna ay u dhiman jireen ay u dhiman doonaan. dadka iyaguna uu taageeray madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha waxaad moodaa inay indhaha ka qarinayaan inay cadayso dawladdu mowqifka ay ka taagan tahay maamulka Khaatumo iyo barnaamijyadiisa ee aanay madax salaax iyo qiyaamo nagula shaqayn. wuu soconayaa haddeerna waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasiirka qorshaynta Xuseen Saleemaan Dhagaweyn. bismillaahi raxmaani raxiim. We are out here today to support the Kenyan people for electing the right president for that position today. Khaatumo State of Somalia supports the Kenyan people with their new government, and we would also like to congratulate the President of Kenya for selecting the right cabinet. madaxweynaha iyo dawladdu dhisay waa taageersanay sawirkiisa la hayo waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad haddaanu Khaatumo nahay si fiican baanu soo dhaweynaynaa haddii aan laydo waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu geeska Afrika bashbash iyo barwaaqo ka dhigo. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay saddexda madaxweyne ee maamulka Khaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel iyo Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash iyo Cabdinuur Cilmi Qaache Binde oo goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan xukuumadda cusub ee madaxweyne Uhuru Kenyatta. intaasaanu haddaanu nahay madaxweynayaashii kula soconnaa bogaadinta Kenya iyo dawladdeeda iyo waxa laga filayo cambaaraynta shirkii Ankara oo ay isugu tageen madaxweynaha federaalka Soomaaliya. annagu waanu isaragnay isaga iyo prime ministerka labadaba iyagoo isdhinac fadhiya baan u sheegay carabkayga uga sheegay meesha dadka degan la yiraahdo Somaliland ummad badan baa degta 5 qabiil baa ugu waaweyn weligiin lama aydan hadlin isaaq ciidaan ahayn. Kismaayo shirka Jubaland ka socda waa taageerayna. Kismaayo iyo Jubaland waa meelaan joogi jiray 5 sano joogay waa gurigeygii marka laga taligelin maayo ciddii diidan dadka isu imaadkiisa dadkaas inuu isu yimaado ciddii diidan macagsta u diideen ka yeeli mayno. waa maamulkeeda waa taageersanahay inay maamul samaystaan inay isu yimaadaan inay nabadgelyo ka shaqeeyaan aad iyo aad baan u taageersanahay. waxaan taageeraynaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta William Ruto iyo xukuumadda ay dhisteen oo aanu aragno inay tahay mid horumar iyo cadaalad iyo nabadgelyo geeska Afrika haddii bikaleey aanu maxay ahayd aanu isleenahay waa ku soo kordhinaya fara badan taageero buuxda aanu siinayna. waxa ayna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada rayidka isla markaasina sheegay in ay soo dhaweynayaan taageerayaan madaxweynaha dawladda Kenya Uhuru Kenyatta. Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir Shombe, telefishinka caalamiga ee Somsat, qalcadda taariikhiga ah ee magaalada Taleex.